siddeetan iyo afarta anigoo ah xasan sheekh muumin kuna jira taxnigii cilmi baarista suugaantii xornimo doonka iyo gobonnimo doonka waxaan kula kulmay magaalada tan ciidanka ama magaalo cad loo yaqaano kana tirsan degmada boorama cali cilmi xirsi oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee ku xeel dheer ambaqaadka waayaha aayadaha ku iidaaman habka loo sawiro ama loo tibaaxo gabayo badan oo ku saabsan dhaqan iyo gobonnimo doonba ku leh badweynta suugaanta soomaaliyeed anoo aada ugu faraxsan la kulantidiisaas kuna mahadinaya ogolaashaha uu iga ogolaaday inuu waxyaalahaan uga baahanayn ka codsaday iise jiro waxaan bilaabayaa oo ku wareejinayaa cali cilmi intii uu ku darsaday suugaanta soomaaliyeed isagu iyo abwaanadii waaweynaa ee deegaanka cali cilmi ku barbaaray oo beeraley iyo reer guuraaba isugu dhafan wixii uu ka hayo siiba kuwii xornimo doonka oo iyakana halkan iigu sajilo haddii aan ku laabto cali cilmi wuxuu dhashay sanadkii 1933 wuxuuna ku dhashay degmada boorama barigeed wuxuuna ku barbaaray markiisii hore reer guuraa markiisii dambana beeraley iyo reer magaalo mid kastaba ha ahaadee dabeeto haatan waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka cali cilmi waanu mahadsanyahay xasan oo gabayadaadi weydiisay waxaan horeysiinayaa gabayadii abwaanada soomaaliyeed wixii aan ka hayo runtii si fiican wax ugama xasuusni oo waqtigan imika sida ay isugu xidhnaayeen ilaa halkay ka soo kacayeen ilaa halkay ay ku joogsanayeen ma hayo hase yeeshee laba nin ayaan wax ka xasuusanahay wixii ay yidhaahdeen kuwaa waxaan u xasuusanahay waxay u egaayeen gobonnimo doon ayay ahaayeen erayadaasi 51 meelaha magaalada Lafaciisa la yiraahdo ku dhisan tahay agagaarkeeda magaaladaas oo aan jirin nin Dubaal Cali loo oran jiray Dubaal Cali Geelle oo aan waqtiga anaga si fajacaaba nagu ahaa waxyaabaha uu ku hadlaya waxaan garanaynaa in aan ahayn waxaan ka xasuusanahay waa taa Tukriya iyo Hindiya roodi loo bogay daahira talaabada ma dhigo gaal wax tiriyay tamashliya ciyaar uma tagaan oo baseegiyadu tabtiilnay ahaayeen kuwaas ay galulaya tala ma laha Soomaalidan toos leeyahay six inta ayaan ka hayaa waa intaan xasuusanahay six labaad Umar bin Khattab iyo markuu Cali Xaraabayay goortuu Cismaan iyo Bilaal cadawgu goobayay 20 ma gaarayna way cudur laayeen alla caawinayay kufrigu cadadin dheeraay awaalow rasuulkiina way cirdiyayseen imikoon cadaan iyo madow ku jeerayno cabsi weeyi waxa Maxamedow cayn ka noo galay عبيد صباح على قاعدة الصومالية عيبة قاعدين أيام كحسن سنة تحدانا كنت
وأنت عن حسوسنا إمك عاسل كا nin jaamacad ducaale la odhanayay oo hadda inuu nool yahay baan filayo kuna noolaan jiray degmada Gabley meesha Togo Jaala la yiraahdo rasmi ku ahaan jiray gabayadii gobonimo doonka ahaa ee waqtiga 52 isagana waxaan ka xasuusanahay gabayadii uu tirinayay oo ahaa ishaar ama hawadii daba ee gobonimo waxaan ka xasuusanahay masaladii jadiidaba waxbaa laga maleeyaa bankan mooska laga jeexayo iyo moorarka iyo gaalka loodani dhagaha laga muday ee laga madaynayo haddaydan majaanin ahayn maankii laga qaaday nimayahu mashaawira waxbaa muuqda waayadan asagana inta ayaan ka xasuusanahay waa intaan isagana ka hayo waa badnaa gabaygiisu wayaalka ayaan ka xasuusanahay haddaan soo gudbo waxyaabihii anigu waan ka gabiyey anigu waqtigaa gabaya maan ahayn sidaana uma qiimeynaynin waxaban anigu is idhaahdaa gabaygu ruyuu kuugu yimaadaa waa intan dambe waxana gabay la sheegi karo oo musajil noqon kara kuwa dhalinyartaas filkatiin ama lagu qabsamayo ama yani la qiimaa ee dhaqankaaga leeg maaha ee reerka dhexdiisa maaha kuwa dadka u iman kara aniga waxaba u horeysay 78 taasoo ku ekayd gabay ahaa ka bilaabmay gabayga aan u bixiyay dareenka hadal doona hanace kana hadlayay dadka Soomaaliyeed waqtigii halkii uu marayay iyo dhaliilo aniga markaa wixii muuqday ayaa ka bilaabmay waxaan u horeysiinayaa imika sixdii aan idin dal xoreynta waagaan galay aan doobiga u soconay dareenkan ka qaba weerarkan dul ugu guuray ducuf loo gumaystaha haddaan dacara leeysiinin godaydii dareed iyo digdiga kama dareereen geesiga damqanaya wadku daaqada u yaala dabkii waxa ku dhacay wiilashii daacadda ahaa dib u joogyadii baa hariya kaan dawo lahayn ay yeeshee xornimadii ma tegin loo dagaalamay dambarkiiba lama maalin iyo darartii maandeeqi deeqdii iyo mashxaradii shacbigu doog ma soo bixin herer dagaladeedii iyo kolkaan dir dhabuun gaadhnay dabaysha xumaatay iyo qalbigii daahirka ahaa dagaalkiiba waa laga hadhiyay doodan socodkii suqaadaladiisii markii loo dangeli waayay dalabkii iyo ismaqalkii kolkii diidda lagu keenay ee qaar wixii laga dufiyo qolo la soo duulay cadowgii kolkii lala darsay dagudii loo sheegay daakhiliga hoose iyo markii diintii laga qoonmay korneelada duqayda ah kolkii doolarku u yimiday dayuuradaha xabashida markaan duudda uga yeedhnay janan darajaha isna askari daaqsin kula foofay dacwada cadhowdiya markaan noqonay daayeerka sidii duulkii reer lood kolkaan daba ka fuul gaadhnay dubbihii alla inagu dhacay ha igu diidinay war dumarkii iyo carruurtii intee dacadti loo geystay imisaa agoon daayiciyo uga dadaaduushay intee gabadh yar dow lagu legdaday daahda ee dhimatay xaqla-aan intee lagu dila daacad noo socotay intee sheekh da'weyn iyo la dhacay weli ducaynayay intee habar dabkeedii fadhida dibadda loo jiitay oo calaladay dabantiiyo dudiyo laga baadhay war waa kii hubkeennii la daday daafaca ahaaye waa kii daleed iyo cidlada daadsanaan jiray dembi baad gashaa lagu lahaa kii dagaalamay dabalaabka mooye ma jirin qori dayaamaay dalka weynu dhiibnay ama iman dawlad xoog leeyay dabsa hadduu gugubo xumaha waa laga digtoomaay waa laga durkaa shayadii ku daraan jiray wixii hore daroor buu noqdiyo duxiyo suugaani hadduun baan dabaal hore galiyo daadkii webigii war dulligii alla laga baryaa doogal ku yimid ma ducaysanaa ee been waa dul wen yahay taxdaas waxay isku xidhaysay bilowgii aan bilownay dagaalka iyo kasoo bixidii Soomaali galbeed aan soo wada dhaafnay kadibna la celiyay nimankii gobonimo doonka loo bixiyay lana yiri war waxaan macaawanayna waa idin siinaynaa xoreeya dhulkiina oo ayaga laftooduna aniga aragtideedii noqoshadii ay noqdeen ka bilaabay waxyaabaha halka hore ku soo xusan waxyaabo way ka farxin yihiin baad istiraado waxa laga yaabaa qofka dhageysta taxda inuu isiraado waa Soomaali caayuune laakiin cidii goobjooga sideedoo kale waa igala mid sidaana waa u hadli lahayd waxa la yidhi haddana oo gabayaaga dareenka hadal doona hana ceebaa tiri xuduudka talowgiisa ayuunbaad ka qaaday xuduudka talowgiisana waad ku joojisay Soomaaliya inteeda kale miyaana wax dareena ka qabin ama dhankan calanku joogo sawaabad ka baqaysa runtii waqti xun ayay ahayd waaba ka cagataaleeyay wax walibana faraha ka baxeen
sida xabad la isugu dhiftaana ee badhib yar tahay haddana mar haddii ay aan gabaygii u bixiyo dareenkaaga sheeg doona ha nacee khasab ayay noqotay inaan ku noqdo waxaanan idhi war nin baa yidhi arraweelo ufna la odhan kari maayo urra loo dhimay inkastoo waqtigu iska xili waa ku noqonaya waxaanan idhi dada gabayga dama igama gelin laba diraacood kolkii dacar runtii laga dhigay la iska wada diiday dabnahayga un baan ka xidhay doodna maan celin marse haddaan dib ugu soo noqday oon dayni kari waayey waa inaan dareenkaan qabo iyo durucda sheegaayo haddiise beenta door laga dhigo oo darajo loo yeelo ooy danuhu sii kala lumaan diidan baan ahay waa inaan ka doodnaa ra'yiga dan isku sheegnaaye dalka waynu wada leenahay iyo duugga nololeeda soomaaliyay waa disheen damici weynaaye dayaxaaba laynagu wadiyo dawladaha qaare dib baad uga dhacdeen meelahaad degi lahaydeeni dab dhexmooday odaygii dad xumi daal ka bixi waaye durdur oomay magaceenna sow lagama dayn waaye dawe yahay bugtaa cadowga sow kaama dana gaarin shaqaaluhu miyay doojiyeen iriqi duugoobay lama dihinna daacee miyaa dibadda loo saaray ma dadweynaha loola yimid ku aan u doonaynin waataynu duugnay maxaa dib u kaxlaysiiyey kuwii hawsha loo diray miyaa laga daryeel waayey dallacaadihii may noqdeen qaar dib tari waaye dalka kuwii wax loo baray miyaa dibadaha u yaacay miyaan dawladnimadii nacniyo calankii loo daalay sidii adhi diraaceed miyaa daaqsi lagu baahay ma qabyaaladii laga durkaan iminka doondoonna dabarkii kuwii laga furay ee dabacna maalayay reer muusan bay uga darkuun darajadu u qaatay daarood ismaaciil miyuu kala dambayn waayey waa nin iyo duunkii artigu ma u dangalaxleeyey dabkuu shiday ma jeerteen miyaa daal la odhan waayey ogaadeen dilaalkii miyuu subaxba diin keenay majid waa dabkuu guranayuu dib ula soo laabmay ma dareertay maymay markay darafyadii eegtay mareexaan dulqaad wuxuu ka qabay kibir ma daandaamay dabla taliyihii diidayii daahir ma u aragnay duufaanadaa dhacay hawiya dood la celin waayey isaaquna wixii lagu diriya lacag ma doondoonay dar walliba ma galay dhaqanku waa lagama deegaane inkastuu dadaal muujiyo daafaca adkeeyey gadabursigii daacaddiisana muxuu gaadhay abbooguna dagaalkii u waday ma iska wada daayey kursuug xabashi sheekhba u dalbaday oo soo degay yidhi degdeg baa midda ogaadeen dilaalkii miyuu subaxba diin keenay degdeg baa middaa loo aqbalay duhur dharaareede iyaguna ma diidin horey ugu dareereen siday maalintaa ula degeen waa la deriskii inkastoy dilaan waxay la tahay inay daweeyeen duqoogiiba waa kii hadhee geri ma dooyeen jaarsada dareenkaygu waa dalagay beeraane dabayshaasi maba taaban iyo dawlad baad noqonay mahbarkana diyaar bay u tahay waanay diran tahay dembi weeyi sheekada barhkeed daacadda ilaahay saad baa inoo soo galoo degelkii aafooyi annagaa dadka u badan miyaan dan iyo xeel moodin madaxnimo daraaddeed miyaa laysku wada diiday waxyaabaha la kala doonayo iyo damacu waa meele laba dawladood oo coliy dad isma siiyaane kuwa xabashida u dudayna sow duulanbaday maaha reer yurubku way dili jireen niman digtoonayn ingiriis dalluumaha uu qoday daaqa ku absaari nf dadkii yir miyaa dawgii laga leexshay dawaaxili miyaa lagu darayo cidanay doonaynin waxay dana lahaayeen miyaa laga dulboodsiiyey qaarkood la duubsaday intoo dabaq yar loo buuxshay miyaa dawladnimadii dhammayd looga duco qaaday dulmiga iyo gafkaa idinku dhacay hadalladaa duulay inay dunidu aragtay ahayd dabad ka oogteeni haddaan loo dagaalamin xornimo dhiigna lagu daadin doqon hugunka raacdiye haddaan diricyo loo laynin darajada la qaatiye haddaan dunyo laga quusan daayeer sidiisii haddaan kaynta lagu daahin dankii iyo carruurtii haddaan dumarku gaajoonin gobannimo duleedkuun la dhiga dalisma siiyaani gumaysaha dubkiisaa madooba ugu dagateeni annaguuna soo daashaday oo waa midka u darani zamaankaa la kala iibsadee daaqayaa nahay digniintaa balqaba maalin dhow laydin soo deliyi dariftaa galbeed iyo haddaan u buqna daymoonno ma jubuutidaan doonnay buu daadi naga qaaday dadaalkii siyaad iyo shacbigu toog ma bixin waaye guuleed ma daadihinayaa dawladnimo ciise soomaali muuqaladuudu xabashi daawey dadkii xeebta wada tegay miyuu doonya kala saaray miyaa daaqsi yimid iyo waddani loogu kala doortay isticmaalku kuu diranayee dumarka laynayey gubannimada kii diidanaa dabac miyaa maala dambarkii hashiisa oo abgaaldoobi uma qaadan dalool iyo wardibso wixii hadhay ma doonayo dibadaha kuwii ugu baxee seegay danahooga degta calanka nimankii ku sida cidima daymood sanaakil halkii lagu ogaa may ka sii durug xaggay diini iyo sii socdaa sheekha wii dirira dumarka iyo raggeedaba kol lagu hootay kolkii janneer loo dalbaday dilana loo raacay dabka wiilashii galay maxaa deeqdii laga siiyey maxaa cumar cismaankii damqaday loogu dari waayey ma dil baa abaa looga dhigay daayinkan oiyo kolkaas daaqalkaba eegto dantii wada jir loo heli lahaa waydu dumiseene ma xumaata daacadi xadiis daahiraa yidhi
quraanka u daliiliyay warkii daahu nabigii dareen qura hadday noontow ka wada guuro dadkeenii maqnaa iyo carrada lama dulayseeni ruushkumadda keeyeen digdiga mana dawaafeeni kuubaan dameeraha la raro dumar ma moodeeni cadowgeenu kama doobiyeen doolle iyo hawde kolkaan diriray waa tay axmaar daqarra gaadheen dubbihii kolkii lala dhacay uu dacwo leegaaday dunidaa markhaati u ahayd daayacnimadii dibu soo bixii wuxuu ahaa daris ilaahay dulmigiiyo dhiciibaa batiyo daalinimadii war wixii hore inoo dilay miyaan la iska daynaynin dameeraha dhacoogiyo miyaan dumar la dhaafaynin dabayl caafimaaday miyaan lagu dambaynaynin dadawey allahayow miyaan lagu ducaynaynin kuwa ayaha doonayay way dibadgaleeyaan ma damqaan dilkiiyo gaajadiyo dacadka gaadhaay taariikhda maan diidanna ay dunidu sheegayso siday diintu leedahay sii daahiraan nahay hadduu ruushku soo duulay uu damaci noo keenay dabka ugu sarreeyey hadduu rookid ugu deeqay dabaabaadka xoogga leh hadduu dawga soo mariyey raggiisii hadduu soo diray iyo miigga dananaya dhimashada diyaar uma aha iyo dabiyaha idaari ma dalkoogii baa saw raggani magac ma doonayo kulligaysa soo urursadee dan isku baahay haddaan doonno maantaan hawaas degi karaynaaye miyay damin karaan sow xornimo looma dirirayo intaa ayaan iyadana ka xasuusanahay walow laga yaabo inay xarfa ay dhaafdhaafaan ama sidii xuruufta isugu xidhnayd ba ay si kale maanta ay isugu xidhan saxdii xigtid egay oo sida hadda socodka soomaalidu uu yahay maamulka iyo wixii lamidiiba ama xagga diinta kolka laga eego ama xaggii dhaqanka kolka waxaan uga fiirsaday bay ahayd gaar ahaan saxdaa waxaan u bixiyay akhi seben waxaanan idhi faada gabay faduul lama galo iyo inaan ku faanaayo fagaaraha ma soo dhigo waxaan faa'id dhalinayn farsamooyinkaa soconayaan filim ka qaadayo taariikhdu inay finish tahay oo ay faylashay xidhatay fasaahadda korodhiya markaad ficilka sii eegto kutubaha sidii lagu fasiray waad ka fahamtahay diintii furqaaneed miyaa laga fallaagooy musheekhdii miyaa laga fadilay dumarro fooxleya markay faralka sheegeen miyaa lagu fadeexeeyey mafantaa runtii laga dhigiyo faarash lagu hoobto fardihii dameeraha miyaa foodkii laga siiyey mafan baaba lagu sheegayaa foolxumiya ceebta fakriyeyna filkii lama socdee faylka ka habsaayey falkuu qaba yidhaahaba kolkii loo fasixi waayey fududayn markii lagu yidhay faraqa la islaacay waxaad fidisa mooye markay hawshu fuli weyday inkastuu fariid yahay hadduu faraku hayn waayo waa inuu fasaasiya noqdaa nimana fiicnayn doqon fuud yaraysaa markuu tala ku faanayo ee ingeesi foorara arkay ila fogaataay adduunyadu fasaqantaye miyaan falaga loo eegi fajac iyo la yaabkani miyaan cidina faallaynin faraxna kama sugayniyo inaan faa'id aragnaayo haddadeed waxaan filanay sow fililigun maaha aakhirsabanna halkaa ayay ku joogtay waxaanay ka hadlaysay uun waayaha hadda waktiga iska jira ayuun bay ka hadlaysay sixdii ku xigtay waxay ahayd adduunyada haddaan dheehday oo dhinac kastoo eegay dheeldheeli baan ku arkayaa waana dhicisii dadka kale dhaqaaloo dhistaa waan u dhididaaye innaguna waxaan dheefsanaa waa dhac iyo booge inkastood dhar kala qaadato ood uunka dhinac raacdo ama se aad tacliin dhigato oo dibadaha u dhoofto dhaqankii adowgaa lahaa waad u dhurataaye soomaali dhalankeygu waa dhabiya ceeryaane qabiilkama dhammaadiyo hunguri dhagar xun keenaaye kolba geesigii dhiidhiyey dhagar wareemaaye bursugaalla ma lahoo cunnada way ku dhimataa ee hashii caawadaa dheri lahayd dheri dab loo saariyey dagaalkii waxyaw laga dhaxlay oo dhowra baa jire dhibashadiiyo way badan yihiin dhaawac hawlgabay dhaqaalaha waxyeellaa ku timid waan u dheeliyeeyey ha yeeshee wax dheeraad ah oo dhaafsan baa jire walaalkaa dhurwaa kugu noqdo cunayo dhiiggaaga mar hadduu dharkaad xidhantii iyo dheriga kaa qaato wixilaha kaa dhaco miyaan cadowga kuu dhaamin dhibtan badan dhaqaalaha yar iyo dhaqanka naafoobay dhaartaa la beeraynayo een laga dhabaynaynin ka dhawaaqa madhan een lahayn dhaxal ka hooseeya dadkeennaa dhalmaayada cuntee dhiiggii laga miirtay waa yeelka dhiilada qaba ee dhabannaduun haysta hooyadan dharkii laga furtay dhaxanta loo saaray dhallaankeenna gaajoonayo dhimanayee liita dhallinyarada soomaalida dhaxal ma haysaana dhulkeennaa inoo ooyay iyo dhagaadaygeenna kuwa ayaha dhalinayo way dhaqasho daayaane dharku waa ka xaaraan hurdana dhab uma seexdaan dhirta buurta iyo waxay cunaan dhagaxda qaarkeeda dhedhan baa xornimo loo maraa dhamac rasaaseeda
dhalan maysa gobonigu haddaad dhimasho diidaan nimayo waxba idinku dhacay waana dhamaadeen dhifayska ugu gala cadowga waad dhinac maraysaan ayadana intaa ayaan ka xasuusanahay saxdii dhada aan ka qaaday bay ahayd mar waxaan ku soo noqday da'da waxaanan idhi waxaan dhegaystay niman beeleyda isku sheegay oo jamciyada nimankaasi way doodayeen ilaa 8 nin kolkay marayaan baa aan dhegaystay siyaabo kala duwan ayay nimankaasi u hadlayeen laakiin waxay iskaga mid ahaayeen dhaliil baa jirta dhaliisha waa ku kala duwanaayeen qaar xukuumadda eedda ay saarayeen qaarra dadka kale oo qabaa'ilka ah ayay saarayeen hase yeeshee haddaan eegay kullu hadalladoodu wada mudahana ayay ahaayeen sideedaba anigu mudahanada ma aan jeclaysanin oo ima raalli gelinin waxyaabo badan oo soomaalidu ku dhaqanto aan raalli gelinin bay ku jirtaa mudahanadu sida dhaliisha dagaalkii baan kaga hadlayo oo kale waayo dagaalkii anigu waxaan waday ama aan jeclaa yani in xoreynta lagu horeeyo dabadeed dhaqashada lagu xujisiyo marka xoreynta inta laga gaadho dabadeedna la raaxayso marka dhaqashada la helo laakiin waxaan arkayay in saddexdiiba mar la wada bilaabay dhan waa laga dagaalamayo qori ayaa laga sitay dadkuna waa ka dhimanayay dhanna dhaqasha ayaa laga raadinayo dadkii xoreeya la islahaa ayaa haddana dhan laga baadhanayay xoolaha ku qadiimaysato ama ninku inuu xoolo badiyo ayuu doonayay dhanka kalena waxaad arkaysay waxyaabaha balwadda ee lagu raaxaysto inuu nin waliba u baahan yahay ninkay waqti u saarnay aniga iima muuqan saddexdaa in meel laga wada helayo sidaa aawadeed waxaana dadka ku arkayay qaar inay wax xoreeyaan jecel iyo qaar in laynaga xoog roonada jecel labadaba dareenka aan ku soo noqonnayna soomaalida isaga mid ma yihiin aniga aragtidooda waxay qabtaa sida halka horeba ku xusan in inaguna aan isa soo celinay kolka siyaabo badan laga eego dadka laakiin intiisa badan igala mid maaha waayo waxay qabaan in laynaga xoog roonaado xoogun lagu soo noqdo laakiin anu taama qabo oo quwad kasta anu waxa ka quwad badan baan leeyahay wadnaha qofku uu leeyahay iyo niyadda waayo waxaan ku noqday daada sidaa daraaddeed waxaan idhi raggan dooda furay iyo beeleydu waa maxay ma dambiilayaashii xoolaha dadweynaha intay darif dhan qaateen dibadaha u cararooyna duubsanayaan ma daneeyayaashii dalkoogu dhisaayo dagaalkiina galay oo iminkana diyaar ah doonaba ha noqotee hadalladan la dadayay iyo dulmaryeyntu waa maxay dacwooyin baa shiray dugaag bay isku wada yimid libaaxoo dan roonaa damaciyo bursiimaha ee nudaan ilaanay taladii ku daayeen goortay dul joogaan wadna diday ma dirir gale ee hadalkii u istagaro adiga u daraadee garabkaa dulbaaxdaa ku darsay yidhaahdeen isna doodba kama celin dabadeed la kala socon tanni baana soo galo isagiyo dacwadu daran lee xilloobay war soomaaliyaa dilay dibi socod muxuu yahay dowladnima macalankaa war soomaali waxaa dilay waa cudur daaweyno weliyaa duceeyo daktarraa ku daalo dawo looga heli waayo dusha waxaan ka leenahay damaciyo bursiimaha hala daaya dacadiga ha shaqaysa daacadi dacalkana waxbaa jira waxa lagu dardaarmaa dusha maadiga u xiga hamaa daara leedahay hadanaynin hawlaha taasi ayaa gundhigu ahayd waxaanan idhi abwaanadu markay doodayaan dhaqanku waa u doore mahmaaha bay daliil uga dhigaan kamana daayaani sicii dararay waa gamashayaa daaqyaraysigee daran dooriyaanaasi waa hadal da'weynaaye aniguna dareenkaaga hadal waanu doorbiday durbuusa gabaygu ii leeyahay iyo dooshada iyo buuqi dantaydu cadaawooyi oo maalka dareeyooyi dabciguu wax iga yeelayaa waanan diriraayo deganaan ma seexdo oo hurdada iiga dacareey anoo daale uunbay dhan kale wax iga daaraanay daldaloolka goortaan arkiyo darayo soo foolle soomaali baan uga digaa daadka soo jabay cadaawuhu siduu doonayo yaan daras ka siiyaaye dantoodaan ku waashaa sidii daa'im oo kale dalkooga la qaatiyo dhacaan diidada hayaay gobonnimo dadkaygii hurdaan doona leeyahay anigoo makriga daaliyey oo doodna ku haraaday xigmaddaan daleedaa u dhigay kuma dawaysmaan dabeecadi ma guurto iyo hiddaha dar isku raacaaye adowgaa hadduu doqon ahaa duugga loo dhuraye soomaaliya waxaa ku dilay saana iyo qoysi qabiilkaa dulliga beerayaa diin ka dhigateene dadka wada ilbaxay badownimaad kaga dambayseen dayaxaaba loo guurayaa qaarra wuu degay kuwaan dariska nahay waa horay dahab samaysteen dalkeenniina way naga dhaceen iyo dadkeennii innaguna dawara kama baxno iyo deeq la yaabsadee
tasawuxu ku siiyaa cishuu dacarta biyaay wax diyaara ma hood barina soo u leedahay waa inaad dadaashaa in badan kana digtoon tahay durmaan beena iyo waxaan sunaadara malcaydheed dad isdhalay sidii maydi iyo duq iyo reerka iyo dugaag la isku soo ururiyey iyo duurjin baan nahay duruustii kacaanka iyo ma fulin dawgii la isfaray distoorkii la qoray xeerashii lagu daryeelayay hawshaa kuwii loo diray ee diinta lagu dhaarshay intay dabarogeen bay sharciga doc uga leexdeen dibi socodka waxaa loo yaqaan ruuxi daacade afmiishaar duq baa laga dhigtiyo ruux duceeyaahe sheekh duceeyaahe dibirkiiyo ninkii lacag lahaa dawlad ka ciyaari dushaa la iska maqashiinayaa damalo beenada dibirkiiyo ninkii lacag lahaa dawlad ka ciyaariyo danyartiiyo intii faramarnaydna waa la duudsiyey kuwii dibadaha u cararay bay dacari haysaaye dictoor lama yidhaahiyo fulaan darajadiisii waa dirasho qayrkood waxay damala moodeene dameer waa tiraystaa nin lihi daaq yar low dhigay damaankaa la kalay waa dibi la kala iibsaday oo loo dulaalayaa dusuuday xalaan baa la yidhi dumar sidoodii dembi dhaafna ma leh nimay carradu dayn ku leedahay waxbaa ka dhashay anigu runtii aragti soomaaliyeed mooyaane aragti qoys ahaaneed uma aan jeedin manaan xasuusnayn hase yeeshee ummadda soomaaliyeed ayaa wax ka soo dhex saartay aragtidaa yani qoys hebellema sidaasuu socdaa qoys hebelle sidaasuu socdaa aan leeyahay aawadeed cid waliba waxba ay ka sheegatay waxaa cid waliba ay ka dhigtay inaan iyaga wax dheeraada ama waxanay geyin waanu agayn ku yidhi anigoo socodkiisa ila muuqday waxaana lasoo raacay yani in la yidhi qoomiyadda gadabursiga la yidhaahdo oo aniga socodkaygu iila muuqday inay daacad la yihiin wax dano u hay gaadhina aanay jirin dadaga aan soomaali ku sheegaya ayaa cid waliba dareen ka qaadatay aadii aniga iyo qoyskii aan sidaa idhi oo aan magaciisa lahaa ayaa tuurtuuryo lagu bilaabay waxaa yimiday taa markii uu ii yimiday gabayga odhanaya taariikhda dunida iyo intuu taranku soo guuray gadabursi tiradaba ma gelin taamna mau noqon wuxuu tarayba lama sheegayo iyo tala ay keeneen ha tartama ninkii tamar haya ee tabanaya qaybi iyaga iyo tumaashaba shalaa taas loo sugay tallaababa ma qaadina maxaa toonka soo geliyey gabay kaasi ka mid yahay ayaa la ii keenay laakiin tii ciddii lahayd wadajirna lagu magacaabay aan dhammaysna tirnayn ayaa la ii keenay tuurtuurtooyin horena waan arkay sidaa aawadeed waxaan is idhi bal adigu xaggii korka uu ka soco hoosa u soo noqonini waxaanan jeclaystay ciddii gabaygaa lahayd inaan helo ama qabaa'il ahaan ama qur ahaanba bal hadda sidii aan ku heli lahaa baadhis ayaa isku dayay waxaan sameeyey dexda la yidhaahdo dalmar dexdaan u bixiyey dalmar oo yani adduunyada wixii aan ka garanayay ku horraysay kuna soo biyo shubatay aakhirkaygii dalka soomaaliya dexdaa waxaan idhi miinka gabay miduu leeyahay iyo maalmo qaybsame ma dadaala maangaabka iyo maatidaa jecel maaweelo dumarkaa leh iyo maararowgabe marxal adag murtida lagu hadlaa mahadho weeyaan masalooyinkii dhaxalgala iyaa madan la geeyaay kolkay murugta xaajadu nin raga waa u muhataay markay murugta xaajadu nin raga waa u muhataay waa inaad wax kuu muuqda iyo mooshin wadataay waa inaad wax kuu muuqda iyo mooshin wadataay adigoo mubaax kuu toon mala cabsoonaynin mabda'aaga waa inaad si xira ugu macnaysaay mudahano kolkii laga dhigay xarafku soo maagay maansada raggii lagu ogaa moralkaa jabe maxkamad kolkii loo dhisay ee maqan yihiin qaarba madaxa ha ku furo iyo intaan maadhar lagu sheegin miyi bay ku wada nool yihiin mana muraadana nin waliba mashquul wuxuu ku yahay meheradiisii maqaadiirta lama ooliyo lama maanaco iyo malakulmawdkii alluun bay naftu u magan tahay ee maadi hays odhan maridhna kaama taga saacaddaad miiska ku lahayd maktuub wey noolow waxaad mudani doontaa dadkuna ugu siman yahay iyo labada meelood qofba moodadii buu socdaa malana waa u gaaray makrigaa wax la isdheeriyiyo maadadaha qaare milka ma laha beenta iyo runtaa lagu macaashaay anigana muraad keli
ayadoo kolka horeba ii soo socotay in dadka Soomaaliyeed dadka Soomaali xumayska iyaga Soomaali wanaajiis leeyahay oo ka badan yahay ka Soomaali xumaale oo halka uu intoosi leeyahayba ay laba ka xun yihiin dareenkaas iyadoo ugu jiray nimanka oo aniga ila toosnaa aragtida ay lana ahayd hawshii loo diray inay qabanayeen gobonimo doon wanaagsan runtii ahaa raga xamaarada ka adagna ahaa oo qabanayay hawshii loo diray kullay nin baan wax wacwacda laga waayo maayo uun mooyaane iyaa waxa lagu sameeyay arrin xun oo naxdin leh arrintaasi waxay ka dhacday boorama koonfurteeda wajaala galbeedkeega meesha la yiraahdo godka carrada gobonimo doon badanna oo yani runtii quwad Soomaaliyeed meesha waa lagu baabiyay nimankaasi waxay hawl waajibkooda ay fulinayeen laba xero axmar ayaa meesha ahaa nimanka ayaa dadka Soomaaliyeed intay kusoo dareereen dhaqdhaqaaq sameynayay socotada dhigayay xoolaha ka dhacayay si ay xerooyinkii ugu xareeyaan ay u cabsi geliyaan ama wax uga laayaan ayay meesha ugu gabanayeen shaqadoodu taa ayay ahayd haddaba niman Soomaaliyeed ayaa waxyeeleeyay oo ugu gabanaya yani magaca Soomaaliyeed mas'uuliyiin ah iskaashata ahaan haddaad eegto oo nimanka maxaa lagu leeyahay tiraadana meelihii jaadku soo marayay ay ku soo dhawaadeen kaliya ah ayaad ka garan kartaa baroordiiq ayaan idhi waxaan idhi gabay baryaan waan ka baxay barootankeegii beebi kolkii laga dhigtay yeeraya baydhana ma bogsiiso waanadu dadkii loona bogi waayo aniguna bas baan idhi haddaan baahi loo qabin way baraka beesha oo runtuna waa bidco kale beentaada laga jecel yahay iyo shaygii baadilay aniguna Allah uga baqaa waxaan banaanayn bulsho weynta raacaan idhaa boqoradii naas shaqaalaha bartiisaan ku saameesha boob kale bogsiyaan idhaahdaa intaan bararku weynaan ma caawna maantana wixii soo baxaan idin barayaa bandhigna weeyi maansadu ninkii beerin karayo bankan meydka yaala iyo intii baarcad lagu laayay balay dhiiga weeyaan tog iyo beerihii xigay baroor diiqda iyo qaylada iyo baayda yeeraysa dadkii eranku waa kaa bedelan baadna ma cunin diyana kuma qubaystaan kuwii bari ku noolaay dilana lama banayn aqaladii beeca loo furay baki iyo kuwii buur madow buuqa laga yaabi birta qaata nimankii fadhiyay boonqas iyo xeeda boon iyo aroor sayl raggii kuma barjeeyaan banaan baxe dadkii boorom iyo beeshii qulujeeday kuwii harawa kama baaqsadaan inay bidcoobaan bankii looma hooyan reerihii baaraxa u degay jabhadahana buurtay galeen baaqigii hadhay ulad iyo kuwii subulaha baadido yimid nin wax biyay waa laga samraa bagana weeyaan naftii hore banaan lagu dilay yaan baahi loo qabin bagadii garoon dadkuna wuxuu ka wada bootay yahay baadilnimadaas bagadii garoon laga yid yaa nagaga baanay beega iyo kaarihi yar jiibka badinaya haddaan aseen calanka laga baajinin halis ku soo baahday burcadnimo hubsideetiya haddaan boobna cidi sheegin baskiraale sida looga dhigay way la baantahay bacadaa heshiis lala galay oo bixiye laaluushi barjaa lagu kiraystay si kale looma bixiyaan baaqii kacaankaan lahayn baarax u fuleeyay ballantii rumeeyaan lahayn baaqigii hadhay baaliyo sidaamaan lahayn baadiyay noqonay xabashada ka bixiyaan lahayn boosaskii harare u barxay ma yeelayno iyo been qoraalada nin bandiiradii sida kolkii beerka laga toogtay wax bedelayba taladaas waa buuri roogale galwadaa la daayaa kolkaad baadidoon tahay cadaawaha haddaad furutuntaan waad ka badisaay walaalkaa birtuu kugu dhiftaa baaqiyaad ma lehe boqonkooye hoosaa jirta oon laga badbaadaynin dooraama hadimaa ka qodan labada baalloode bahal ma dhaamo ee ibliis baawarlaa jire bilaahaan ku wada dhaaranay iyo bariya yaasiine ballantuna shahiid bay ahayd baqalaaneede haddaan baruhu iibaan lahayn badowga eed beeliye baahida dadkay nala qaba iyo baaha gaajada falastiinba waa taa ka nool beema dirireede Soomaali bolol baa ku shidan balaf la'aaneede boob iyo dhacdaad aaminteen waanad badiseene basha jiirmadaysay guri baabadaa jire jeer oo sharcigu buur noqdo oo laga bayaan sheego balada raggii dhigay ilaa kiiska lagu buuxiyo gaashaan la buuxiyo ilaa 100 nin loo yeedho ilaa ma bugtada loo tago iyo goobta malaxawda basaasiin qarsooneed ilaa buuga laga yeesho bogsan meena taa shalay
intay baaqi noo tahay badbaadada dadweynaha ilaa biica laga daayo bugsan mayna taa shalay intay baaqi noo tahay qabiilkiina waa kaa bidlay oo cidima baabini nin waliba wuxuu bii yidhaana waa u bannaan tahay sixdaasina ilaa ayay ahayd inta aan ka xasuusanahayna taa weeyaan mar kale anigu weli baadhashadeedii sii wata kolkana sidii soomaaliyaba u hadlaysay u hadlaaya waxaa ila noqotay inaan idhaahdo ka jawaabo sixdii ahayd gadabursi tiradaba ma gelin taamna mu noqon taa ayaan ku xiriiriyey waxaanan idhi mar haddii runtii laga baqay oo baaniyaal noqotay ama siye xaqii baan yahay oo baadi laga raacay aniguna beryahan waxaan lahaa gabe ha baandhayne bandhig la isku yimid baan ka hadhay borotankiisii hadduun bay balwadi igu kacday oon soo baraarugay sheekada la buunbuuniyaa way beddelan tahay duruuf niman u haynoo xarfaha boobayaa dilay annagu ilaahayna baray baabka maansade soomaali boobka iyo dhaca iyo booligaa dilay been baynu caadaysan iyo waxaan bannaanayn haddaan biime loo gelin xornimo belolo loo jeerin bashaduu galowdiya haddaan bawna loo noqonin gobannimo bannaankuun la dhigay waa bakti iyo duufe nin barjaynayo dawladnimo kuma soo bixin bayana cadowga kuma fiicna iyo inay u baahdaane mar haddii barkeen raacsan yahay baadidii maqane qabiilkii baryahan laga bogsaday bari ka noolaaye boorama haddaan nahayse sharciga waanu boganaayey haddii wadajir loo baahan yahayna waan bojinayaay baaqi kacaan balantaan lahayn iyo haddaan baaqi fulinayn oo wadajir loo baahan yahay waan bojinayaa barbarkayga waan haynayaa waana kuu burini haddiise nabadda la ysaga baxo oo la isku baasheegto dadka iyagu beriisu ma dugo iyo baahi lacageede carradooda kuma baayacaan bawlad iyo saaqe birta cadowga lagu gowraco iyo bn baan nahay gurmadaha qarxiya waxaanu nahay dab iyo baaruudi bilowgii qarniga waxaan lahay dawlad loo bogay boqoliyo guddoonshuu ahaa baarlamaankuna boqorro 15 isdhexlay iyo baaha odayaale inkastay badnaayeen haddaan geesiyadu baadno axmed guray bilaa kuma jire waa bahdaan nahay imiir nuur cidda u baahanay waan ku barayaa halkaasaad bayaan diyo ka heli been masheegtage isba baalaheediyo dilaad booqasho u iman ninkii adar ibnaha u dhigiyo kuulma baran weyne bini aadamkaa kale nin raga waa u buriyaane muslim iyo bukhaariba kolkii la isku soo bixiyey wuxuu diiday faransiiska baday way u bogayaane abaalkaaga oo baaqday waa lagu bidcoobaayey taariikhda baal dahab maxaa loogu bixin waayey waxaa soo buruuf loo hayo warbaana lagu biirin taariikhda baal dahab maxaa loogu bixin waayey abaalkaaga oo baaqday waa lagu bidcoobaayey waxaan biinay yaa sheegi kara waadna barateen baadiye dadkoo wada ahoo badow oo liita bandare sayla cun buu ahaa beeca xooluhu badmareennada ay iman jiray oo buwagbaa qorane farxad lagu nastiyo waxay ahayd beedka raaxada bircad niman la yidhi baa jiray oo daafaca u baxay horta waxaa jidgoo looga baqay burcad iyo xeeb dolaaliyo cilmiyo kaahin baa bari ku noolaaye calibuculle lagu biiri iyo kii barra ahaaye bartay geediyadu joogsadaan beela laga waadiye barasadeenku roob lu ahaa lamana beenayni ha yeeshee waktigu wuu bedelay beeshii samaroone ingiriisku wuxuu baadhayay uu badiga soo guuray ballanqaadii saaq buu ka helay barina loo guuriy uti wadhaflo baa noo kacdiya baliya shaydaane imikana barbaartay cunaan baaqigii hadhaye kolba ay bad laga keenay bay baal u geliyaane burjigii hadduu naga kiciyo baabkii wahabkii waa kaa baraarugay dadkii baahsanaan jiray boorkoo dhismay nooga hadhay baydil nololeede dabdalowya hawluhusa waa cayn bukaan socode biimaha adadag iyo kolkay bixinta soo gaadho bakaylkana allaa caayiyo kaan wax bixinayni baraar naaxay baa idinku jira amase bayrbayre bare sida nin la isku hor wado baaqda la arkeeyo bareedda xablo qaar lagu wado soo baxaa jiriyey baabuurrawaan leen iyo baanka lacagtaa leh bilaash xaytayaalyaan la noqon boquhu waa ceedada intaa ayaan iyadana ka xasuusanahay waxaanan ula jeeday yani gadabursigu de kolba waktiga la joogo ayuunbaa soomaalidu tilmaantaa laakiin waxaa fiican inaan dadka la iska caayinune shalay waxay ahaayeenna la sheego maanta wuxuu yahayna qofku la sheego hadday maalmo xunxunu dhexda ku jireenna in sideeda loo sheego laakiin dee in la iska caayo un in loo qasto anigu xidnaba uma jeedin taasina taariikh ahaan ayaan uga jeeday waxaanan anigu halkaa ka jawaabayey erayadaa i soo gaadhay oo yani ayaan ka jawaabaya halkaa ayaan ku yarnasanaynaa halkaa saxdan waxaa la yidhaahaa ilaahay dartii
anigoo dagaalkii la galay garas ka soo qaatay goortii dib loo soo way isdul mariyeen maanta bay ugu daran tahay uu joogtay nabarkii daawa axmaar lala dhigtay iyo daalinkii kale loo daa dalku haystay iyo dad iyo maalkii kii kalena way ugu dareen waanay dumiyeen ilaahay dartii iyo haddaan daacad u hadlayno madaxnimada lama diidaniyo dawladda markeeda suuqana raalli baa laga yiho waaba daahiyada niman baa dabbaa surinaya oo dawgal hoos wadeen reerkii durriyadda u ahaa diida nabadii dad badan dagaalada socdiya dumarka ooyaya iyagaa daniga beeraya iyo damaca shaydaane daliilkiina anigaa hayoo idin dareensiini nimankuu daraad magan galee duubka ku xambaaray haddaan laga dambayn karin muxuu jaarso ugu duuday dixdii faafaneed iyo muxuu diida ugu laayay dagaalkii absama waday maxaa dacal u soo jeestay duulkii dhulmaantuhu muxuu habar jeclo u doontay diinina saleebaan muxuu daaqsin ugu maagay digoodiga maxaa looga dhigay adhi dugaaglaayay samaroon dulmiga kama koro iyo dirasho hawleede danna kama helaan oo waktigu door ma saacideen ragga iyaga dagaalka iyo maxaa daafaca u buriyey kolba meesha ugu daran maxaa loogu dubuq siiyey dallacaad la qaatiya maxaa darajana u sheegay ugaa dhabaha dilinaa la yidhi amase diinkii dadka iyaguma dacwooyin baa dow weliba yaalay gooramana degmaba maaha iyo meel dad leeyahay daabiyad ma dhaantiyo dhulkii daaqsinka ahaaye wadamada la doondoonayo iyo dibadda weeyaane dawladii hadday maamusho daacad loo koriyo dalxiis baaba loo iman lahaa daawashiya laydhe maxaa dawyadii laamaygii loogu wada diiday dam maxaa ka dhigay layrka sow darag la-aan maaha durturadan agteedaa mishiin dara maxaa u waayay dadka kaleba way wada dudaan dararna maalaane dulli kama baxaan niman hadday damaqsan waayaane waa kaa dulqaadkii badnaa nooga sii daray ma dameer jinkaray baanu nahay duudkiina cadaayo cali cilmi aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaanan kugu guubaabinayaa hawsha habkaadu wado ha ka daali ee hore u soco waanadii waaweynaa een cajaladii hore taariikhiisa wax ka soo taataatay haatanna iyadoo cajalada lagu yar aawadeed waxaan ka codsaday sixo caaqiiba leh oo qiimo leh oo qoto dheer oo qara weyn bal iyakana inuu halkan iigu qabto xasan waad mahadsan tahay khusuusan aniga oo sidaan horeba kuugu sheegay ka baxay bahalka oo uu bahalku asaladiisa yahay sida cilmi daalibka oo kale uu yahay sidaa darteed haddana waadigani baadhbaadhaya inaan bal waxuun ka keeno sidaa darteed bal waxaan ka xusuusanahay ananka kaaga sheego ayaa garan si xanu bixiyey baa jirtay marxaladda iyo waktiga ayaa garan inaan gaadhayoon cadowga gaadayo iyo inaan gacmaha soo qabto oon keeno gurigeena ayaa garan qabiil ina guflay oon iilka sii gelinay iyo ina guntiga loo xidhay oo unka kala gaabshay ayaa garan xaqii inaan gallo oon waajibkii gudano iyo inan dembiga goor waliba gacan tuglaynayno ayaa garan inaan geesinimo ugu gol roonaanay iyo ina adduunyada gidiba layna garan waayay ayaa garan gafkeenu inuu roobka gudhinaayo iyo ina qiyaamihii la galay oo galabti loo joogo ayaa garan godeeriyo inaan gebi ka laalaadno iyo inaan daleed gaarino oon gaati soconayno ayaa garan gantaaliyo inaan hayno qori gaaban iyo inuu garaad laaguhu iyo nacabku gaagaabshay ayaa garan gasiiniyo inuu guriga kayd yaallo iyo inaan gelgelintaasi nahay waayo laga guuray ayaa garan inaan kala go'nay uu gobolba meel aaday iyo inaa gacmaha laysayo oo goob la wada joogo ayaa garan gumaystuhu inuu joogo gurigeenna iyo inuu midkaa gaara yahay abid ma guulaysto
ayaa garan inaan gaal nahay oo naarta geli doono iyo inuu jannada guulahay nagu gargaarayo bal marxaladan maanta maraynaa waa maxay baan ula jeeda hadalkaasoo aan u saarayay ninkiisa gabaaya garanayo uu ii sheeg bahay macnaha halkaan marinay waxaan u jeedin gabaygan kale wuxuu ahaa bali maayo gabay yidhaah toban qatay oo taaga jareereeda oo aanu haraa taabanayn taa aqbali maayo dibaax baa rasaas lagu tirshay oo turuqa jiidaysay oo aanan ninkii taabanayn taa aqbali maayo maroodaa daxaha tooxiya oo ay qola ku tuurtuurtay oon gacanka geedaha ku tirin taa aqbali maayo geel baa kaliil talax gabay oo ilo ina teelteeshay oo tuurta haanta ugu sii taa aqbali maayo ari baa bankii tuunya degay oo laaba lagu teedin oo aanu dhurwaa taabanayn taa aqbali maayo afartaataad iyo wowga iyo kudciyada hidhiidheed ma tameeyey waataan murtida taajirku ahaaye geri baa intuu jaarsa tiro kuna dul tiqtiiqsan uu odaygu reeraha ka talin taa aqbali maayo hawiyaa wuxuu tamar lahaa tuur isugu geeyey oo qaranka kelidii ka talin taa aqbali maayo ogaadeeniyaa samatasha iyo tala sanoo khayr leh oo labada tuurood cunayn taa aqbali maayo jid waaq baa xornimo tiigsan oo taabi nolosheeda oo xabasho hoosteed ka tegi taa aqbali maayo gadabuursi baa tiira oo daacadnimo taagan oo dunidu haatan u taqaan taa aqbali maayo reer sheekh waxay tegi haddaan taaban gacantoodu iyo qaranka tuurtuur ka day taa aqbali maayo intay dunidu soo teersanayd amase taariikhdu ma jeerteen iyaa xumo ka tegi taa aqbali maayo ciisaa wixii lagu turqay iyo tala qabiil daayey oo tiigsan soomaali weyn taa aqbali maayo 10 sano ninkaan wada jirneen eegay taladiisa tunka hadduu jannada iigu sido taa aqbali maayo baan kaasina bal waxoogaa yaroo aan in qadara ka xusuusanahayna anoo bahalka isaga tegay aan halkan kaaga sheego waa maxay baan idhi in yaroo gaaban waa maxay qabiil aan tirno iyo taashka loo geli waa maxay xornimo tiigsada iyo turuqa naafayn waa maxay amxaar toogta iyo xabashi taageer waa maxay tubtaa quramar iyo qolba meeltaad waa maxay dhanqaalaha tabca iyo tariiqoodiid waa maxay xaqiiqada tashkiil tugadiya been waa maxay dubta sayla iyo booramiya taagan fakala baydka waa maxay wadadan taagan ee toos u bixi weeyay bal xasano hadii ninkii cali cilmiye sanadka qooqnaa aad uga soo hadlay aniga sayd adi bayacnay duxurinaysu bal waxoogaa abaaraha ka tiriyeyna taariikhaana kuugu soo qaado iyo sabankan abaarin heshay saban dhaweydna abaar sanan heshay waqtiga hore taan ka tiri waari nimayo cadaabtani dhacday iyo dunidan xiriirtay cunsuraha kale iyo dadkani xagga gudyoonaya arshigani ilaahay ilaha xirashada u diiday in xiraabo gaabani ma ogeeyaa kii caruuriye in duna xiraabo ataan caynka ka hayaaye ishirin ma harin saacadan xidina oolayno kolka waa cadeed gaabasiyo meel xiriiriye niman baaba inay xuud aqaan haamaha wuxuu uga yacajilni allahayow adaan ka cabdarabnaayo rabbigoo abaartana bisiyo uumid yaqiin iyo weliba aafada kale aradka beeraysa adduunkaan nasiisiya dhammaad iyo loodii haddaan aaminiinnahay nimcadu nagama oosheen annagaa ibliis taabanoo diidna amarkii sida aawadeed buu waktigu nuulo oogsaday umuurtii timaadaba adaan ku irkanaynaaye rabbow ilaha roobaadna sii aamin baa tahay oo aradka doog nooga yeel madhe adduunkii diraaco musa jilaal ibtilo uruu dhac soo gaadho afagaal diraaceedu iyo risla ulanayni diganaha ayaamahan dabaylahani aafada watee bari ka eedaamay buuraha dulmiga ooyaya orodka yaacaya ee eebbahoogii alkume ku ashkatoonaya lama araga dunyada waktigan eega ka horteeday waa duni abaalkeedu yahay ololka naareede waa duni ilaahadeeyeeday nebigiye waa duni aan iibaan lahayn orodka moojaane waa duni albaabkii xaqi awde waa hore waa duni asleenka iyo sharciga ku isticmaalayno bari baan lebaa nagu jiro waad ogsoon tahay umuurtay timaadaba adaansa ku irkanaynaaye rabbow ilaha roobaadna sii aamin baa tahay oo aradka doog nooga yeela madhe adduunkii cirjiidhkiyo mariiqa isbedelay cirirka soo booday agaaliyahan caymadaya ee samada ceeriyoomay samaleheda caynkii ay ahayd caawa laga doorshay caaradan baroodiga indhaha caadka kaga duubtay ee ciilla yuururo
markii kale ku xeeliyoontay hadda jibiska naagaha noqday fiidka xaradaya dhalintaan cawrada marnaba xalaalka saarayni adxun iyo isbiirtada kuwaa laba xanlaynaya nimanka allaha xaasiye nebiga ceebeeyey cishadii aan eegaba waktigan xagaynaya dadka kii xirfaan leh iyo ninkii xaqilaa garan cutubyadan lasoo tababaree cunayo jiirkooda ee meelihii loo codsaday xagaba saarayni carruurtooda nimankaa sidii cadow u laynaya dadka kii cilmiga weyn lahaa xaama wuxu sheego carruurta qur-aankii farkii looga celinayo cishadii aan eegaba waktigan xagaynaya dadka kii xirfaan leh iyo ninkii xaqilaa garan gobonima se ciyaar maaha iyo calo la iibsaaye xilliyo firdowsaba siduu caadi loo ammaanay waa shay xumaan laga ceshaa una xasloomayni waxaana iyo dhay karuur laga xasheeyaaye waa oodi iyo jirdhimsiyo xuudka kuu dhalee niman bay ciyaariya la tahay caliyow dheeldheele waa tahay gabayada tan cali cilmi iyo cumar jaamacay soo jeediyeen waxaan u arkayaa xaaxidii halganada iyo waktigan dambe haddaan laga tegin gabayada hore ee gobonimo doonka ahaa ee cajalada bilowgeeda oo cali cilmi ku bilaabay haddii aan sii raaco gabayga tilmaamaya lo-da midaha laga madaynayo waktigiisii waa fogaa wuxuuna ahaa waktiga la yidhaaho dabatalaalkii ee lo-da lagu bilaabay talaalka ninka dhakhtarka xoolaha ahaan jiray ee maxamuud indhayara la yidhaahaana uu tallaalayay iyada oonan tijaabooyin hore lo-da lagu samayn daawadana horey loo oqoon waktigaas oo lo-du ku leer waktigaas wuxuu ahaa markii abaareyskii abaaraha la yidhaaho iyo darcadii laga soo gudbay waxaana ay ahayd waktiga la yidhaaho sanadaha soomaaliga marka loo tilmaansado dabatalaalka haddii sanadaha kaleeto loo cuskado ee taariikhda ku sugan tahay ee miilaadiga ah waxay ahayd 1911 marka iyada oo ay ahaayeen gabayada hore ee uu dhowrka nin kasoo taataabtay cali cilmi haatan haddii baaris dheer la galo waa ballaaran yihiin gabayadu waana la helaya degmooyinkana waxaa laga helayaa waktiyadaa gabayo gobonimo doonaha ah oo ku saabsanaa ama xornimo doon iyo waktiyo kasii horreeyeyba kuwii laga gebiyey hase ahaatee intooda badan dadkii ka gebiyey dhinteen dadkii hayeyna baasteer ay u baahan tahay sidii loo soo saaro waxaa jira oo haatana lowsan sheekh xasan taani oo markii 1946 iyo 47 halganku jigjiga ka soconaya leegada laga furay gabayo waaweyn oo ballaaran lahaa se ahaatee naxariista korkiisa ahaatee sheekh xasan markuu xijaabtay waxa laga helayaa caa'iladiisii iyo meelo kaleeto oon tilmaantooda haynaba hase ahaatee ereyadii haddii aan xasuusano waxaan ka haynaa yani qiimaha ay lahaayeen markii uu lahaa soomaalii saadadana madow sidee baan ka yeelay daradoogtanaye saadadan madow sidee baan ka yeelay saymaa sabaarkiyo kala kaadigu way suuri doonaa saxaafila waxaan la suri siinkaan la kala xigin waa soomaali magaca xarafka ka kaca ee siinka sacabaarsa nacaysan duluquyman saddexa maalintoo qadan waxaa kamida dadka haatan soomaali aan diidno haddii aynu sii raacno waxaa jira allaha u naxariisto jahiye qaalib
gabayo ku digasha oo qoto dheer oo markii xabashida 1936 talyaanigu ka qabsaday Ethiopia uu digasho iyo inay waqtigeedii Soomaali dhibaatadeeda kaga lumay oo hubkaan lagu dilay intii asaageed sameynayay ay iyadu dadka hubkaan samada kaa dilay intii lagu sameynayay Soomaali unba hunguri kula saloobnayde samir garo axmaaro adaa culisadkaadi marka degmooyinkaasi aan soo maray ka bilaabma hallay baday wajaale ciidanka dila foorama iyo degmalacad waxa la ii tilmaamay dad badan oo gabayahaya hase ahaatee waktiga ayaa ii sini waayey waxaanay baahan yihiin baaris ballaaran in lagu sameeyo waxaan kaga baxayaa xajaladan halkaas iyaadan kusoo gabagabaynayaa anigoo u mahadnaqaya cali cilmi iyo cumar musa لا